guud ahaan ciidanka xukuumadda Soomaaliyeed gaar ahaan iyada halkan jooga oo aan ognahay masaafada ay ka yimideen ayadoo ujeedadoodu tahay inay cadawga argagixisada ah ee dhiig miiratada ah ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed iyo dheefta ummadda Soomaaliyeed baneestay inay ka dulqaadaan halkan u yimiday waxaan rabaa guud ahaan halkan runtii hadal badan maanta uma soo istaagin umana baahno inaan idinkaga mahad celiyo inaad u bixisaan dhididkiina iyo dhiiggiina qarannimada iyo badbaadinta nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed oo aad halkan u joogtaan runtii taas waa midii aan dariiska u gashanay waa midii aan u dhaaranay oo uga soo fogaanay qoysaskeennii iyo carruurteennii gabdho iyo wiilal sida aanu leenahay ugana soo biirnay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma jirto ummad helaysa nabad ayadoo aan bixin dhiiggeeda ma jirto ummad helaysa xurriyad iyo nolol wanaagsan ayadoo aanay u bixin qaybo kamida bulshadeeda naftooda iyo dhiigooda waxaan rabaa marka guud ahaan inaan idinkaga mahad celiyo hawsha aad qaranka Soomaaliyeed u haysaan runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa gobol kasta ay joogaan waxay ku faraxsan yihiin kuna hurdayaan hawlaha qarankiina u haysaan una bixinaysaan dhididkiina iyo dhiigiin xaqiiqatanka kuma soo koobi karno hadalla aan afka ka dhahno waxa qalbiyadeena idinkugu jira wanaaga iyo qiimaha aad ku leedihiin qalbiyadeena iyo maskaxdeena wanaaga aad ku leedihiin qalbiyada madaxda Soomaaliyeed wanaaga aad ku leedihiin dhammaan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed waxaad ogaataan nimanka argagixisada ah ee dhiig miiratada ah ee go'aankoodu yahay baabi'inta iyo laynta dabargoynta dadka Soomaaliyeed boobka iyo dhaca ay ku hayaan hantidooda banaysashada dhiigooda iyo maalkooda in aanay haysan gacan aan adinka ahayn oo ka dulqaadaysa midka aad ka soo dulqaadeen waa ku faraxsan inaad ka soo dulqaadeen midka dhimanna wuxuu idinka sugayaa inaad ku dulqaadaan mana dareemi doonaan wax xurriyad ah iyo wax nolol ah inta ay dul saaran yihiin nimanka argagixisada ah waxaan rabaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad oo halkan aan maanta idinkugu nimiday aniga iyo wasiirka gaashaandhigaba iyo guud ahaan saraakiisha qiimaha badan ee nala socota in aan idin dhahno waad mahadsantihiin sababtoo ah qofka baneestay inuu dilo walaalkii inuu dilo aabihiis inuu dilo hooyadiis inuu dilo walaashiis qofka baneestay ma dhihi karnaa aqliyad bini'aadinyaa ku jirta ma dhihi karnaa ma dhihi karno laakiin waxaan isleeyahay dabcan xanuunka ay arkeen awgiis kuwa duurka ku dhuumaalaysanaya ee hawdka ku jira waxaan leenahay isu soo dhiiba ciidamada qaranka isu soo dhiiba ciidamada qaranka ma jiro joys kale aad haysataan oo aan ka ahayn inaad bulshada dib ugu soo laabataan danuubtii iyo dambiyadii aad ka gasheenna aad mar kale ka codsataan bulshada Soomaaliyeed inay idin cafiyaan haddii aanay taasu dhicin ma ka hari karnaa kama harayno tabartoorana waa aragteen masaafada aad ogtihiin aad ka timideen inta aad ogtihiin aad soo dhaxmarteen dhul ay ku dhibaataynayeen bulshada Soomaaliyeed meelihii ugu dambeeyay ay ku dhuumaalaysanayeen uga daba timideen casharka aad ugu dhigteenna waad ogtihiin runtii aad iyo aadan idinkaga mahad celinayaa xaqiiqatanka wanaaga qalbiyadeena idinkugu jira iyo farxadda aan saaka idinku faraxsannahay awgeed aad iyo aad u mahadsantihiin